diyaarad dagaal oo uu leeyahay Mareykanka ayaa soo riday qalab duulaya hawada Mareykanka oo aan la aqoonsan. Kaliya xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in saraakiisha aysan weli u suuro gelin inay ogaadaan waxa uu ahaa qalabka la soo riday. Waa markii afraad ee uu Mareykanku bishan gudaheeda fuliyo howlgalka noocan ah oo lagu soo ridayo waxyaabaha hawada duulaya oo laga shakiyay. Taliyaha ciidamada ee waqooyiga ayaa sheegay in qalabka dul hogganaya hawada Mareykanka aan lagu tilmaami karin buufin iyo sababta uu hawada ugu jiray, wuxuuna intaa ku daray in meesha aan laga saari karin in qalabka uu ahaa mid shisheeye. Madaxweyne Joe Biden ayaa galabtii Axaddii amar ku bixiyay in lagu soo dejiyo meel u dhow harada Arron oo ku taalla agagaarka xadka Canada. Qalabkan ayaa waxaa looga cabsanayay inuu faragelin ku sameeyo diyaaradaha qaada xamuulka ee marayay hawada maadaama uu qalabkan dhulka u jiray 20,000 oo fiit 6,100 mayl sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka. Waddan Shabcaan wararka gobonimo.